kulanti wacan wanaagsan soo dhawaada asxaabta ku xiran channelka wax xogaal maanta iyo saaxiibayaal waxaan sharxi doonaa filim aad u xiiso badan intana muuqaalkeena ugu dugalin haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan kanaalka subscribe sar sidoo kale muuqaalkeena like sar waa kanana filimkii daawasho wacan saaxiibayaal filimku halkan uu ka bilaabanayaa ninkan wuxuu haystaa awoodii 10 gacmood waana midda uu filimkeenu hadda uu ku socdo xataa haddii ay ka hor yimaadaan qowmiyadan ninkan uu iskaga aadaa sidoo kale ninkan mar walba wuxuu u goobaa awood inuu helo sidoo kale inuu lacag helo diyaarad ayuu soo qaadanaya wuxuu aadayaa keenta si uu helo waxyaalo fara badan kadib gaari ayuu qaadanayaa balse gaarigii ayaa la qallimaa markuu gaariga ka qallimo kadib wuxuu soo galayaa meelkeena kadibna wuxuu ku arkayaa gabar balse gabadhii iyo isagii ayaa iskhilaafaya markan wuxuu la soo baxayaa awoodiisii gacantii 10 bir kadib labadoodii ayaa isqabanaya markan balse ugu dambeyn waxaa dhex maraa labadoodii dagaal fara badan balse markan waxaa awood sheeganaya gabadhii halkan ayuu noo joogayaa labadooda dagaalkooda si aan u safaano qaybaha kale ee filimka kadibna dib ay ugu soo laaban doonaa markan waxaa dhalanayaa wiil yar oo lagu magacaabo Changi hooyis waxay sameynaysaa inay ka taxadarto mustaqbalkiisa iyo horumarkiisa waana wiilka filimkana wadaa Changi waxay sameynaysaa hooyadiis inay ku dadaasho si uu horumaro wiilkeeda Changi waxay sameynaysaa hooyadiis inay u xirto bahal yar oo kantiira kadibna qoorta ay u geliso Changi aabis markan waa uu soo kacayaa asagoo hurdaya kadib markuu soo kaco Changi aabis wuxuu sameynayaa inuu shaqadiisa u aado kadib shaqadiisa markuu aado bawrkiisa ayuu kusoo baxayaa kadibna hawshiisii ayuu imaanayaa dib aan u soo laabana marka Changi waa kana markaan soo weyn wuxuu la joogaa saaxiibtiis labadoodu way soo baxayaan waxay wada qaadanayaan gaari balse markan gaariga ay isku qabsanayaan gabadha ayaa dhaysa anaga gaariga wadaya ugu dambeyn gaariga way wadaan markan waxay u imaanayaan asxaabtoodii way la kaftamayaan way la baashaalayaan way la caweynayaan kadib labadoodu way soo baxayaan marka labadoodu way wada hadlayaan sababtoo ah bari shaqa ay sugaysaa kadib labadoodu wada hadlayaan kadib way soo kala tageen waagi ayaa soo bariyay Changi waa soo baxay wuxuu u yimid qaraabadiisii iyo cidiisii markan wuxuu la hadlayaa cidiisii waa la kaftamayaa kadibna waxa uu macsalaamanaya cidiisii balse markan waxa soo raacay labadoodii waxay saaran yihiin tareenkana waxa la saaray niman gangster mid kamid ayaa u maanaya kadib wuxuu sameeyaa baashii qoorta ugu jirtay ayuu ka dafayaa markan meesha waxa ka dhacaya dagaal fara badan Changi wuxuu sameeyaa si uu soo cista baashiisii ayuu nimankaas ka dhicinaya mid kamid ah rakaabka tareenka saaran ayaa leef si wax walba uga duubaya leef ayuu iska galaya ninkiina markan uu dagaalamaya kadib Changi wuxuu sameeyaa nin weyn ayaa u maanaya oo gacan go'an kadib ninkii gacanta wuxuu la sabaxaya mid dheer balse Changi markan godkiisa ay biyo soo galeen baskiina markan waa ordaya darawal ayaa wada balse markan labadoodii dagaal fara badan ayaa dhex maraya gabadhii xataa way cili weynaysaa kadib gabadhii ayuu gacan qaadaya markaana tareenkii waa u socdaa kadib Changi iyo ninkii dagaal fara badan ayaa dhex maraya balse Changi markan gaariga ayaa laga tuuraya kadib Changi gaariga dib ayuu soo laabanaya balse markan baskii gabadha ayaa ku dhacaysay baska ay magaalo uga badbaadiso labadoodii markan dagaal fara badan ay dhex maraya oo gaariga dhexbatinkiisa isku dilayaan gabadhiina gaariga ayaa wadaa markan Changi wuxuu sameeyay qoolayahay balse markan baskii wuxuu og yahay gabadhiina way xakameyn leedahay baskiina waa qallimin rabaa ugu dambeyn baskii waa la taajinaya kadibna baskii khasaare fara badan ayuu geysanaya marka baskii uu istaago ninkii ayaa ka soo dagaya baskii balse markan ninkii uu kusoo dagaa labadoodiina markan iska soo baxeen markan gabadha ay ku qeynaysaa Changi waxay leedahay maxaa ku dhacay khasaare fara badan u geysatay kadib Changi wuxuu leeyahay aniga waan baxaya oo diyaarada ayaan raacaya Changi marka wuxuu galayaa xasuus fara badan wuxuu soo xusanayaa aabiis waqtigii uu soo tababarayay oo noloshiisa ka taxadarayay iyo hooyadiisba markan aabiis wuxuu geenayaa meesha lagu tababarto markan Changi wuxuu sameynayaa inuu feertamo waliba qaabka feerka loo barto ayuu sameynayaa Changi markaas dambe uu koraya sidoo kale gabadha walaashiisina waa tanaa Changi wuxuu soo maray tababar fara badan si noloshiisa uu aabiis uga soo taxadaray markaana aabiis wuxuu siinaya markii uu doonayay arkeen talo ayuu siinayaa Changi iyo gabadhii saaxiibkiisa markaa ay saarayeen diyaarad si mataqaana ay wadan kale ugu safraan muraadkeeduna wax kala ma ahan Changi wuxuu goobayaa walaashiis ayuu goobayaa markan diyaarad ay ka soo degeen wax soo raacayaan gaari ugu dambeyntii wax soo galayaan hoolkii meeshii baaritaanka kadib baaritaanka ay mareen markii gudaha ay soo galaan waxay la kulmayaan nin kale oo meesha ka qaylinaya kadib wuxuu leeyahay nin qatar ah tahay wuxuu tusayaa fiidoogii markii uu ninka dagaalamayay kadib Changi waa uu yaabaya ugu dambeyn labadoodii waa soo wadaya wuxuu keenayaa meesha hoolka marka meeshii way ku farxiyaan ugu dambeyntii wuxuu uga sheekeynayaa wuxuu tusayaa meeshii la isku dagaalayay iyo meesha musaaracada ka jirta kadib markuu wax walba uu daawado waxaa loo sheegayaa Changi inuu dagaalamayo meeshana uu mataqaana raan u dul saaran doono ugu xataa u leeyahay fiiryahan ayaa tahay ay wax walba dhagta uga sheekeynaya markan Changi wuxuu barbar dhigayaa meeshan wax yaala kadib Changi waxaa loo sheegayaa in mataqaana dagaalka uu bilaabo doono marka Changi markan uu soo qaawinaya markan dagaal ayuu diyaar u yahay Changi markan waxa la horkeenay walaashiisa oo dagaalyahanada balse hore ayaa dagaal uga bilaabaysaa Changi markan ma uu dagaalamayo wuxuu leeyahay dagaalka jooji
balse gabadhii markaan ciid ayay u qabtaa isagii way la dagaalamaysaa weliba si arxan darro ah ayay u dilaysaa. markaan Changi wax walba oo dhacay ayuu isu leeyahay u dhaadhici balse labadoodu siday ku kala tageen cadawtuna maxaa dhex dhigay. markaan waa xilligii ay yaraayeen labadoodii balse Changi markaan wuxuu la joogaa walaashiis wuxuu leeyahay waqti yar ayaan kuu soo laabanayaa balse meeshaas ayuu gabadhii uga soo tagayaa dib damban ugu laabmaayo sidaas ayay gabadha cadaawada ugu qaaday. markaan Changi soo dul taagan ayaa darba ku dhufanaysaa Changina sidaas ayaa lagu guuleystay. Changi markaan wax guul daraa ma dareemayo sababtoo wuxuu helay walaashiis oo waqti badan uu goobayay waxay gacanta ka saaraysaa xasuus fara badan oo hore oo hooyada abeeta gacanta u galiyeen. kadib meesha ay goobarmaayo ay wax soo galayeen niman gaangasara meeshii gabadhii way cararaysaa Changi iyo saaxiibtiisna way soo cararayaan iyagoo cararaya ay wax kor fulayaan biro balse birihii uga harimayaan Changina wuu dagaalamayaa. gabadhii ayaa markaan birti ka dhacaysa balse gabadhii soo badbaadi weynaya ayaa gabadhii walaashiisa ayaa meel kale ka soo boodaysaa kadibna gabadhii ay badbaadinaysaa. kadib Changi nin ayaa wuxuu kala cararayaa mataqaanaa baashi surka uu jirtay kadibna ninkii uu cararayaa balse Changi ma ka haraya wuu ceyrinayaa wuxuu ku qabanayaa meel dhulka hoostiisa kadibna asagoo raba inuu muddo geliyo ayaa aabihiis Changi ee gaalkiisa ka soo baxaya kadibna birta ay gacanta uga qabanaya. markaana Changi waa laga badbaadiyay ninkii balse birtii yartaado katiinkii aabihiis ay gacanta laga saaraya. saaxiib yaal qaybta koowaad ee filimka halkan ayay ku ogtahay insha Allah. saaxiib yaal filimkan wuxuu leeyahay qayb labaad. saaxiib yaal muuqaalka like saara una share gara asxaabtina kale insha Allah qaybta ma ayaa noo balana.